kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaaliyeed production kuna soo dhawaada barnaamijyoreedkeena qodobada ku daawo doontaana hadduu rabiidma waxaa ka mid noqonaya warar degdeg ah oo ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe oo ku waramayo geerida taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir General Farxaan Qaroole oo lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe waxaanu qaybtan idinku la wadaagi doonaa faahfaahintii ugu dambeeyay qaraxa lagu dilay taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir General Farxaan Qaroole iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada haramcad iyo kuwa gorgor ee saakay ku jarmaaday deegaanka Basra gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay tirada dhimashada iyo dhaawacyada saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ka soo gaaray weerarkaas ayaanu faahfaahin idinkaga heenaa sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa dagaalamayaasha al-shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda weerarka lagu dilay taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole mas'uuliyiin dawladeed oo ka hadashay iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamza oo aanan wili war ka soo saarin weerarkii lagu dilay Farxaan Qaroole islamada waxaan idin wadaagi doonaa taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo markii ugu horeysay lagu arkay jiida hore ee dagaalka deegaanka Basra ee weerarka maanta lagu la eegtay generaalkii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir hogaaminayay Farxaan Qaroole xilli waayidii ugu dambeeyay khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyay Farxaan Qaroole iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya haddaba macluumaadka aad kaga baahan tahay weerarkii ugu dambeeyay ayaynu ku gorfeen doonaa barnaamijyoreedkani qodobadaas iyo kuwa kale oo xasaasi ah oo ku aadan wararkii ugu dambeeyay deegaanada ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee hoostaga gobolka Shabeellada Dhexe ayaynu qaybtan si guud ugu kofargareyn doonaa asaysheen intaan ugu gudagelin dhamaantiinba waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalka like dadaan sidoo kale tan aad la wadaagtaan saaxiibadiina kala mahadsanidin faafaynta ayaynu ugu gudageli doonaa haddii aan ku bilaawno wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegayo in taliyihii ciidanka booliiska gobolka Banaadir General Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole lagu dilay qarax ka dhacay agagaarka degmada Balcad oo 30 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qaraxan oo ahaa mid miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka Basra oo lagu magacaabo laba buundaale iyada wararku ay sheegayaan in General Farxaan Qaroole iyo ciidamo kale oo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee booliiska haramcad in ay mar qura la kacday miina halkaasi la dhigay Farxaan Qaroole ayaa watay gawaari nuuca xabadu aysan karin balse waxa uu qaraxu ka hor la sheegay inuu ka degay gaariga waxaana kadib ku qarxay miinadii dhulka lagu aasay iyada oo ay wararku qaar ay sheegayaan in isaga uu ku istaagay miinada dhulka taalay oo lala damacsanaa taliyaha miinadan ayaa qarxday xilli ay ciidamada iyo saraakiishu wadeen howlgallo miina baaris ah oo lagu sameynayay inta u dhaxayso deegaanada Balcad iyo Basra ee gobolka Shabeellada Dhexe Farxaan Qaroole ayaa dhiirigelin waxa uu tagay ciidamada goobtaasi ku sugnaa ee qaybta ka ah howlgalka ka dhan al-shabaab ee lagaga saarayo deegaanka Basra waxaana uu ka mid ahaa taliyaashii hogaaminaya howlgallada amniga lagu xaqiijinayo ee ka socda agagaarka Basra sidoo kale qaraxan ayaa la sheegayaa inuu sababay dhimasho iyo dhaawacyo kale oo soo gaaray askar kale oo ka tirsan ciidamada dawladda gaar ahaan ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadashay weerarkan sidoo kale dawladuna waxa ay sheegtay in taliyuhu uu ku shahiiday weerarkaasi ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe dagaalamayaasha al-shabaab ayaa degdeg u sheegtay weerarkan inkastoo shaki weyn uu ku gudaaman yahay qaabka weerarkan uu dhacay weerarkan dhacay ayaa yimaaday xilli ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya aroornimadii hore ee saaka ay ku jirmaadeen deegaano hoostaga Basra oo ah halka xudun u ah gobolada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose ee Soomaaliya waxaana ciidamadan la sheegay in uu wehelinayay taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad taasi oo xoojisay shakiga weyn ee laga qabo qaabka uu dhacay dilka General Farxaan Qaroole kooxda al-shabaab oo weerarkan sheegatay ayaa daawacday inay ku guuleysteen dilka taliya Farxaan Qaroole inkastoo dagaalamayaasha al-shabaab aysan faahfaahin rasmi ah ka bixin saraakiisha kale oo ay weerarkaasi ku dileen asayeeshee waxay tilmaameen in ku dhawaad 10 ka mid ah saraakiisha ciidamada haramcad inay ku dileen weerarkaasi Allah u naxariistay General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole waxa uu ahaa sargaal daayar ah oo howl nafuurnimaha u haya qaranka Soomaaliyeed waxa uu hadda ahaa taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir waxa uu sidoo kale hore u soo noqday taliyaha gaarka ah ama taliyaha ciidamada gaarka ah ee haramcad oo ka tirsan booliiska Soomaaliya si gaar ahna u tababaran ee la dagaalamayaasha al-shabaab
Farxaan Qaroole waxa uu muddadii uu qaranku adeegaya qabtay howlo baaxad leh isaga oo dhowr jeer ku guuleystay xureynta iyo difaacidda goobo al-shabaab ay soo weerareen haba ugu badnaaday hoteelada Muqdisho. Farxaan Qaroole ayaa lagu xasuusto Allah u naxariistay badbaadinta alla ka sokow nolosha hooyooyin Soomaaliyeed, aabayaal Soomaaliyeed iyo waliba dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaasi oo hoteelada Muqdisho marar kala duwan al-shabaab ay ku weerareen. maanta ayay xaq alla ka qorneed geerida in General Farxaan Qaroole uu ku shahiido qarax dagaalamayaasha al-shabaab shabeellada dhexe ay kula egteen. Allah u naxariistay General Farxaan Qaroole ma geeriyoonin isaga oo gurigiisa ku sugan, hase yeeshee maanta ayuu ku geeriyooday jiidda hore ee dagaalka gobolka shabeellada dhexe. Taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaab ayaa ka badbaaday weerarkaasi dagaalamayaasha al-shabaab ay ka geysteen gobolka shabeellada dhexe. Mahad Maxamed Salaad ayaa aroornimadii hore ee saaka warbaahintu waxay si weyn u daabacday in uu ka mid ahaa tiro saraakiil ciidan ah oo ka mid ah kuwa dhiirigelinta ugu tagay marka la eego ciidamada Haramcad iyo kuwaas nabad sugidda Soomaaliya ee dhammaantoodba ku sugan gobolka shabeellada dhexe. Hadallada ay soo qorayeen shakhsiyaadka sida weyn u taageersan nabad sugidda Soomaaliya ayaa waxay ku yiraahdeen waxa la arki jiray agaasimo nabad sugid oo qol mukeef ku dhex jiro amar ciidamada qol mukeef ka dhex siiyo heshiis iyo wali wada shaqeyn ay kala dhaxayso kooxda al-shabaab. Maanta Mahad Salaad waxa uu 3 maalin uu ku jira duurka Basra oo ay howlgal xoogan ay ka wadaan ciidamada nisa kuwa huwanta ah ee hubeysan ciidamada Gorgor booliiska gaarka ah ee Haramcad. Taliye Mahad Salaad waxa uu wadaa qorshe weyn oo lagu dhabarjabinayo kooxda al-shabaab oo si bulshada caasimadda ku nool ay u helaan nabad iyo amni. balse taasi bedelkeeda hadalka ka soo yeeray kooxda warbaahinta ku taageerta taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa waxa ay ka walaacsan yihiin baahinta fariintaasi iyadoo dad badan ay shaki gelinayaan in Farxaan Qaroole ay dileen dagaalamayaasha al-shabaab. si kastaba ha noqotee hadalhayn weyn ayaa taagan, mas'uuliyiin kala duwan ayaa ka tacsiyadeeyay xubnaha ka tacsiyadeeyay kama mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha wadanka iyo waliba xubnaha kale ee muhiimka ah. hase yeeshee afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya oo markii uu ka warhelay in ilaa iyo waqtigan madaxda dawladdu ay war ka soo saareen mid ka mid ah saraakiisha dhalinyarada ah ee ugu muhiimsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya haddana ahaa taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir geeridiisa ayuu ka tacsiyadeeyay Sadiq Doodishe war uu soo saaray. balse xildhibaano ayaa jiro oo ka tacsiyadeeyay xildhibaanadaas oo uu ka mid yahay xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Maxamed Ibraahim Macalimow qoraalku uu soo saaray waxa uu ku yiri Allah u naxariistay taliyihii ciidanka booliiska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Qaroole waxa uu ku shahiiday isaga oo la jihaadayo qawaariijta. dagaal kol hadii la galo waa la dhimanayaa, halgan iyo xureen oo aanay naftooda horiyaal ku geeriyoonin ma guuleysto ayuu yiri. insha Allah cadowgu waa uu jabaya, xaqa ayaa guuleysan doono ayuu yiri xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimow oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. ugu dambeyn madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa darajada sare iyo guuto gaarsiiyay generaalna ka dhigay Allah u naxariistay Farxaan Qaroole. darajada sare iyo guuto waxa uu ku helay in uu ka qayb qaatay weeraro lagu soo afjaray al-shabaab kuwaasi oo intooda ugu badan ka dhacay hoteelada ku yaala Muqdisho oo ay marar kala duwan al-shabaab ay soo weerareen. si kastaba ha noqotee madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyadeeyay geerida ku timaaday Farxaan Qaroole. gudaana daawadeynta ayaan ku soo meeraya barnaamij jureedka kala socoteen warbaahinta Soomaaliya Production tan iyo kulanti dambe nabad iyo warsan.